sideetan iyo sagaalkii bilowgeeda midkood bay ahayd anoo Kenya ka tagay baa nin saaxiibkay xamar tagnay xaafadda Madiina aan tagnay anagoo tan bas ka degnay xaafad u soconna baa gabadh baan dhexas hor socotay dirac iska khafiif qabta garbasaarna garabka u saarantay madaxeeduna u qaawan yahay waxaan ku tashanay markii xaafadda gudaha loo yargalay jidkan buuqa badan laga baxo gabadh inaan wacdino ayadoo naga hor socota baa waxaa naga hor yimid labo aad ka subxaanallaysan oo diracyana qaba wax u qarsoonna aan jirin gabadhiina hor socoteen wacdin lahayn baa la yaabtay dhinac intay u istaagtay bay tiri laa ilaah warkuba kuwii nabigu sheegay bay tiri kaasiyaatun caariyaatun nabigu yiri wey anaga waxaan la yaabnay gabadhan iyadoo hadday saa inay tahay isu haysato xadiidka ay soo gelaysa mayna samayseen diintana wax waa ka taqaan waxaan go'aansan inaan la hadlin kor baan kala soconay xaafadday tagtay markaan ogaanay raggii ducaadda ahay magaalada xaafadda deganaan u soconnaa waxaan ku war halkaas gabar baa gashay khayr baa nooga muuqday iyo inaynan fahansanayn waxay ku jirtee ha la waaniyo waxaan rabaa inooga jeedo sharku isagaa kayskaad sii kala subxaanalaysta ilmuhu markuu dhasho nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kullu mawludun yuladu ala alfitra ilmo kastoo dhasho wuxuu ku dhalanayaa islaamnimo ilaa ruux ilaahay taqaanaa dunidan timo ilaa la soo ballamay laakiin hadhow bii'adda ayaa bedelaysa fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajjisaani kama qaala sallallahu alayhi wasallam labadii dhalay ayaa bedelayo ruuxdan way toosnayd iyagaa yahuudiyadda ku darayo hadday haystaan kiristankan iyagaa halkaa raaciyey aw yumajjisaani hadday majuusiyadda haystaan iyagaa halkaa mari laakiin naftaan iyadoo ilaahay taqaan ayay dhalatay baahidda inaanay kaa dabharanay hadalkii marka aad dhalato nebigu wuxuu sunnayey sal lla ly slam laba shay ilmaha markuu dhasho laba sunno ah waa halka maxalu shaahidkaan soo qaadanay laakiin sunanku waa fara badan yihin iyo ilmaha waxa uu leeyahay marka uu dhasho minhaa waxaa ka mid ah ilmaha in dhegta midigta looga addimo bidixda looga aqimo waxa lagu maqashiiye koowaad waxay noqotay ilaahay magaciisa subxaanahu wa tacaala intaan war kale lagugu bilaabin wax kale laguu sheegin waxaa lagu maqashiiyey waa addin weeyaan caqli ma laha ilma dhashay weeye laakiin waxa lala khitaabaya waa ruux ilaahay la soo ballamay iyadiiba hadal ku socda marka awal simaac waxa koowaad muxuu noqday ilaahay weynigiisa allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulullah halkaasaa lagaaga bilaaba markaa dhalataa lagugu bilaabo ilaa intaa ka dhimanayso addin waa ina daba jooga waa maqlayna waxaa ku daba socdo ee kaa daba har ilaa maxay yihiin waxa ay yihiin nabiga kuu sheegay sal alla alay slam maalintaa dhalatay hadalka lagugu bilaabo waxa uu yahay markii mu'adinku u addimo ee addinka u dhammeeyo u ka firaaqoobo waxaa sunno ah in lagu ducaysto